in ka badan 100 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi Kenya ayaa saxiix qoraal kalsoonina ugu labeynaya hogaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalkaasi Aadan Barre xildhibaanadan oo gaariyay ilaa 130 mudan ayaa qoraal u gudbinaya madaxweynaha wadankaasi Kenya Uhuru Kenyatta oo hogaamiyo xisbigaasi sidoo kalena waxa lagu wadaa inuu gudoomiyuhu kulan baarlamaan oo muhiim ah kaasi oo la xiriira baarlamaanka Kenya oo la yeelan doono maalinta Isniinta ah ee toddobaadkan waxaana la qorsheynaya in xilka laga xayuubin doono Aadan Barre 24 saacadood oo la soo dhaafay wargeysyada ugu waaweyn dalkaasi Kenya ayaa sidoo kale noqonaya in Uhuru Kenyatta uu dib u habeyn ku sameyn doono maamulka dalkaasi Kenya gaar ahaaneed xisbiga uu hogaamiyo iyadoo la fili doono inuu isku shaandhayn ku sameyn doono golaha wasiirada dalkaasi Kenya wali ma cadda sababta rasmiga ah ee laga qaadayo xilka hogaamiyaha aqlabiyada xildhibaanada ee lagu soo doortay gobolkaasi waqooyi Aadan Barre Star TV